moogtahay inaad tahay macallin aan isdaadanayn oo aan dareensanayn ardayda wax ka baranaysa. qof kasta oo inaga mid ah meel kastuu joogo waxa uu yahay macallin bixinaya casharo maalinlaha oo gudbinaya fariin toos ah iyo midaan toos ahayn. dhammaanteen guryaha joogno waxa jooga carruurta joogtaa waxay u fiirsanaysaa maalin walba habdhaqankeena, sidaynu u hadlayno, sidaynu wax weeyaan u dhaqmayno, iyo afcaashaynu samaynayno. dhammaan waxaasi waxay saameyn ku leeyihiin noloshooda. waayo ilmaha yareed walaalka tiin amba ilmaha dhashay waxa laga yaabaa inaanad dareeminba inaad cashar siinayso. tanna inta ugu badan marka la eegayo waxaa waqti la qaata dumarka carruurta marka la eegayo. sababtuna waxay tahay waqtiga ugu badan iyaga la joogaan, iyagana la qaataan. marar badan waxaa dhacda in dumarku iyagoon daadanayn ay carruurta fariin qaldan ay gaadhsiiyaan oo ay wax baraan aanay iyagu dareensanayn ay baraan, hadhowna ka qoomeeyaan. tusaalahaan oo kale waxaad ogaataa waxaad daawanayso ilmaha yar kula daawanaya dhabtaad ku haysaa. sidaad u hadlayso ilmaha yar si fiican buu u dhuganayaa, waxa weeyaan waxbuu kaa baranayaa oo waxaad ku hadlaysa laftigiisa ayuu baranayaa. afcaashaad samaynayso iyada laftigeedana waxa weeyaan wuu baranayaa oo si toosaad cashar ugu siinaysaa. waxaad daawanayso ee mobilkaagaad ka dhex daawanaysana sidaas la mid ah ilmaha yar wuu dhuganayaa. qaabkaad isaga duubayso iyo waxaad isaga duubayso iyo haddaad waxa weeyaan jaasayso iyo haddaad wax khayr la dhegaysanaysaba intaba ilmaha yar wuu kula socdaa. laakiin waxa laga yaabaa adigu isleeda waa ilma yare waxba waxa weeyaan ma dareemayo. haddaad been sheegayso, haddaad run sheegayso, haddaad yacnihii wax kharibayso oo magaranaysaa waxan aad samaynayso, dhammaan waxyaalahaasoo dhan waa ilmaha yar waa ciddi kugu dhaway kaa baranaysaa. marka fariintan waxay si gaar ah ugu socotaa waa dumarka weeyaan. iyagoon daadanayn bay casharo bixiyaan halisa amba casharo wanaagsan. deetana waxay saameyn ku yeelataa isla ilmaha laftigiisa. waxaa ka wanaagsan walaalka yar ama walaashaada yar oo aad barayso wax wanaagsan, habdhaqan wanaagsan, kelmado wanaagsan iyo afcaal wanaagsan. se maxaa ka ayaan daran adiga oo intaa in la mid oo wanaagsanayn baraya ilmihi yaraad walaalka haynan baad adigu ba dhashay. haddaba waxaa aada muhiim u ah in aad aada uga taxadartaan waxaad samaynaysaan. sidoo kalena waxa weeyaan mobilkiina waxaad ku isticmaalaysaan iyo waxaad waxa weeyaan soo dhigaysaan social media laftigiisana inaad aada uga taxadartaan baa muhiim ah. maxaa yeelay keliyata maaha un xumaanta aad samaynayso ama wanaagka aad samaynaysa mid adigu kugu koobane waxa uu saameyn ku leeyahay mustaqbalka ilmahaaga amba walaalkaaga yar ama walaashaada yar. marka waxaynu aada isugu dhiirigelinaynaa inaynu ka taxadarno, aynu ka digtoonaano dhammaan afcaashaynu qaadayno oo aynu ogaanana inaanay keligeena saameynaynin laakiin ay saameynayso sidoo kale cid ardayno ah, ciddaas oo ah carruurta gurigeena la joogta.